السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونفسن تاودي الكسود وعلى channel كسويال كميديا قضبادين وواوين مانتوحا اي كليهين رئيس الوزراء خير وكهل لقرشة حكومة سوغدية يسو كورونا فارس مدحوينها بولان سيد عبد الله الدني oo dalab degdeg ah u diray beesha caalamka Turkiga oo ka hadlay nooca doorashooyinka Soomaaliya iyo xilliga ay tahay inay dhacaan magacaygu waa maslax nasiib fadlan haddaan u cusubtahay channelkan subscribe nasar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan haatan ku soo dhawaad warkay faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay ka hadlay dhibaatada cudurka coronavirus iyo sida loo gaashaman karo ugu horreyn Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa kula dardaarmay dadka Soomaaliyeed inay qaataan talooyinka caafimaad ee dhaqaatiirtu soo jeediyaan wasaaradda caafimaadka dalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa caddeeyay in guddiga qaran ee ka hortagga cudurka COVID-19 ay iskugu jiraan xukuumadda culimada dhaqaatiirta ganacsatada iyo bulshada rayidka ay ka wada shaqeeyaan sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba sidoo kale wuxuu sheegay Khayre in la kordhinayo xarumaha lagu daaweeyo dadku soo rita xanuunka corona lana baadhoono baaritaanka si qof walba uu helo fursad uu ku baaro Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ganacsatada dhaqaatiirta bulshada rayidka iyo culimaduba ay wadaan dadaal xoog leh oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee caawinta u baahan isla markaana ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyadda isla garteen in la yareeyo miisaaniyadda dhaqaalaha ee ka dhashay cudurka coronavirus ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaaraha ayaa markale ganacsatada faray inay shacabka u turaan xaaladda adag ee lagu jiro culimaduna ay shacabka kula taliyeen in qof waliba uu gurigiisa ku cibaadaysto halka dhaqaatiirtuna uu ku bogaadiyey in la joogo xilligii loo baahnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dalab degdeg ah ku aadan cudurka coronavirus u gudbiyay beesha caalamka ilaa ay sare u kacday halista cudurkan ee gudaha Soomaaliya madaxweyne Deni uu wehinayo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash ayaa shalay kulan hab maqal iyo muuqaal ah kula qaatay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya mas'uuliyiinta beesha caalamka ka socotay ee kulankaas ka qayb galayay waxaana hogaaminayay danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan waxaana kamid ahaa ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga safiirada wadamada Norway, Sweden, Germany iyo mas'uuliin kale oo ka tirsan World Bank-ga kulankaas ayaa looga hadlayay xaaladda cudurka coronavirus iyo saameynta caafimaad iyo dhaqaale uu ku yeelan karo maamulka Puntland sidoo kale kulankaas ayaa looga hadlayay u diyaargarowga Puntland ee cudurkaasi iyo doorka beesha caalamka ka qaadanaysa dadaalka ay Puntland ugu jirto ka hortagga cudurkaasi ee COVID-19 waxaana qayb ka ahaa kulankaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka wasiirka qorsheynta iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada dowladda Puntland safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxamed Yilmaz ayaa waraysi uu siiyay laanta Soomaaliga ee VOA waxa uu hadlay dhinacyo badan oo arrimaha gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya safiirka ayaa ugu horreyn ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sida ay wax u socdaan waxa uu sheegay in doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya ay yihiin kuwo aad muhiim u ah xasilloonida dalka sidoo kale waxa uu sheegay in sharciga doorashooyinka ee dhawaan soo baxay uu yahay mid leh muhiimad gaar ah wuxuuna sababta ku sheegay inuu qorayo inay dhacdo doorasho hal qof iyo cod ah safiirka ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ay kala hadleen dhinacyo badan sida gudaha doorashooyin iyo siyaasiyiin badan balse wuxuu sheegay inaysan weli kala hadlin xukuumadda daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa wararkeena warkaan warkayga intaa kulmi doona waa aniga maslax nasiib sidaas iyo amaanaha Allah